kulanti wacan oo wanaagsan daawadal kuna soo dhawaada janalkeena ka wararka aan ku soo gudbino macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaaciyay liiska guddiga doorashooyinka heerarkooda kala duwan haddaba magacyada ku jira xubnahaas oo qaarkood weli dhaliilo xoogan laga qabo xubno la sheegay inay taageer weyn u yihiin madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo baxay siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku kala qaybsamay durbadiiba qaarkoodna waa isu dhaweeyeen qaarkoodna weli kama aysan hadlin waxyaabaha laga hiriyay ayaa soo gudbin doona in magacyada xubnaha taageerada dowladda federaalka ay kuwa markaas loo arkay inay dhexdhexaad ka yihiin qodobada kale waxa qayb ka noqon doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in loo diiday in ay soo qaado dhaawacii Colonel Sani Cabdulle oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka isla markaana ku dhaawacmay qarax dhawaan ka dhacay deegaanada hoose gobolka Shabeellaha Dhexe waan soo gudbin doonaa wararka arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda waxa ugu waaweyn dowladda Turkiga ayaa ku guuleysay tijaabada gantaal cusub oo maraakiibta lagu burburiyo oo baas aan ku faahfaahin doonaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saaro gambarka furo oo share gareey saaxiibadii meel kasta joogan idinkoo commentiga laagana inoo reebaya aad baad u mahadsantiin ka qayb qaata diburiska dalka aan ku sameynayno waan kaga mahadcelinaa haddii jeer sida aad noola socotaan aan ku bilowno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa digreeto ku magacaabay guddida maamulada doorashooyinka labada gole ee dowladda federaalka ay ku xalinta khilaafaadka Rooble ayaa magacaabay liiska guddiga doorashooyinka heer federaal iyo liiska guddiga xalinta khilaafaadka sidoo kale liiska doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo liiska guddiga doorashooyinka xubnaha Somaliland iyo liiska guddiga doorashooyinka beelaha Banaadeega iyo sidoo kale liiska guddiga xubnaha dowladda federaalka ku diraysa dowlad goboleed dalka liisaskan guddiga doorashooyinka oo dhawaanba la sugayay in la magacaabo isla markaana xafiiska wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka taagnaa hadalhayn iyo buuq fara badan guddigan oo xalay magacaabay wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa liiskii hore laga saaray 34 xubnood oo kamid ahaa 67 xubnood oo cabasho laga keenay waxaana lagu celiyay dhinacyadii ay markii horeba ay ka yimaadeen xubnahaasi loo soo bedelo muddo kadib dhammaan dowlad goboleedka iyo Somaliland oo ay soo gudbeen liiska wax ka bedelka lagu sameeyay waxaa markale la bedelay 6 xubnood oo la sheegay inaysan buuxin shuruudaha loogu baahan yahay in xubnaha guddiga waxaana xubnaha laga saaray guddiga doorashooyinka ilaa 40 xubnood Rooble ayaana waxa uu markaas guddidan magacaabay dhammaantood ay yihiin kuwa markaas loo arko qaarkood inay yihiin dhexdhexaad halka kuwa kale loo arko inay yihiin taageerayaal weli ka tirsan xafiisyada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo taageeraha weyn ay yihiin madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xubnahaasi kamid ah Maxamed Muuse Maxamuud ولد متان عسلان محمد حسن محمد فاطمة محمد عبد الله iyo kuwa kale oo aad u fara badan oo ka mid ah taageerayaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo markaas qaybahooda kala duwan ee xafiisyadana ka shaqeeya arintaas oo si weyn ay markaas ugu soo kala qaybsameen siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood hadaba intaas kadib waxaa lagu kala qaybsamay isla markaana dad qaarkoodna ay ka hadleen midowga musharaxiinta halka qaar kalena ay ka aamuseen kadib markii wasaare Rooble uu soo saaray liiska dhammaan guddiga doorashooyinka dalka waxaa soo baxay falcelinta siyaasiyiinta ee ku aadan waxa ay inta badan dadka ka hadlay muujiyeen inay ku qanceen kala shaqeynta xubnihii cabashada laga soo gudbiyay ee guddiga doorashooyinka معصرات أحمد معلم فقي مشرح مدحوين محمد سيرين عبد الكريم حسين قولد ودمانتود بكم السياسيين معارضك أيان الشاعي إني يسود وين ينتلاعبوا الوزراء Rooble وقال أرنتاز إسلام كان يكون عسين لو نشقيه الوزراء أنت سلقة شقيه وقرن ما هالسلاد أيها وقرار وصوص على كوري وهم بلينا هي Rooble يو سحدة مركز لما يشترك جودة الدورشونين كهير فدرال يهير مملو قبلت وكل باقي وحنا عصنا إياه إن على شقي الوزراء يتم كيسة سلودة الجيوه قبص من الدورشون فن أولو الدنيا هاي وزير كأمريكا المدة أحمد معلم فقي أيها نكيس وحو الشيء ذا يو كان هو فنان كذب الوزراء Rooble وصوص على ليس كي جودة الدورشونين كإلو السوقي طلبنا أنه هرشاد ونقنسة إن ذلك doorasho xura oo xalaal ah oo wasaarahana markaas uu ka soo dhalaalay balanqaadkiisii qoraalka fiqi intaas ku sii daray waxa walba uu bini'aadamku uu sameeyo ma dhameysna say waxa ay tahay in lagu garabsiyo inta dhaman ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi Cabdi Kariim Xuseen Guulad ayaa dhankiisa qoraal uu soo saaray ku sheegay waxaan soo dhaweynayaa magacaabista guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba waxaan u arkaa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka toosan ee daadejinta hirgelinta doorasho loo gol yahay kuna qabsoonta xilliga loo aseeyay waxaana hubaal ah in dalku uu dhibaato badan ay ka soo gaadhay ismarwaaga siyaasadda ay ka taagnaa qabsamada doorashooyinka kuwaas oo keenay finno markaas dalku u horseeday inay shacabka qaarkood ay barakacaan ugu dambeyntii musharaxa Maxamed Sireen ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku soo dhaweeyay dhamaystirka wasaare Rooble uu soo magacaabay ama uu soo dhamaystiray guddiga doorashooyinka qaranka
waana tallaabo muhiim ah in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay. waxaan ugu baaqayaa guddiyada doorashooyinka inay shaqadooda u bilaabaan sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu kusoo gabagabeeyay qoraalkiisa. siyaasiga ama xubnaha ugu horeeya ee siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa maalmihii lasoo dhaafay si muujinayay in guddidan ay ku jiraan xubno uu sharciga u diidayo islamarkaana aysan ku qancin kala shaadheyntii wasaare Roble uu ku saaray guddida doorashooyinka. inkasta oo markaas qaar ka tirsan midowga musharaxiinta kuwooda ugu waaweyn ay marka horeba ay soo dhaweeyeen xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed, Roble ayaa shaaciyay xalay liiska guddida doorashooyinka oo gaaraya 5 qaybood kuwaas oo kala ah liiska guddida doorashooyinka heer federaal, liiska guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed, liiska guddiga doorashooyinka xubnaha Somaliland, liiska guddiga doorashooyinka beelaha banaadirka, liiska guddiga xubnaha dowladda federaalka ee ku daraysa dowlad goboleedyada. waxaana haatan dalka u aaday doorasho loo wada dhan yahay islamarkaana loo wada dareerayo. qaybihii dhexe ee janalkeena ka hawa wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. fadlan aad uga soo taasay subscribe saaran gabalkana furno shir gareeya saaxiibadii markasta joogaan idinkoo commentiga like inay noo reebiyo aad baad u mahadsantihiin. waxaa gordhow aadi doonaa wararka arrimaha caalamka diblomaasiyadda ku saabsan. hase yeeshee markan haddii aan ka hormarno waxaa la ogaaday ilwareedyo kala duwan oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta. waxaa dowladda federaalka Soomaaliya loo diiday inay qaado dhaawaca Korneyl Sani Cabdulle oo markaas ku dhacmay qarax ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. xogtan ayaa tilmaamaysa in xubno ka mid ah ehelada korneelka ay taliyaha ciidanka xoogga dalka ay ka diideen diyaarad gaar ah oo helicopter ah islamarkaana ay u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya lagu soo qaado kadibna la dhigo isbitaalka Digfire magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegay in ugu dambeyn shalay subax la soo qaaday balse la dhigay gurigiisa waxaana la jooga dhaqaatiir gaar ah oo u badan xigtidiisa. sidoo kalena ay wararku sheegayaan in dhaawiciisa uu fudud yahay. qoyska korneelka ayaa qaba shaki weyn oo dhinaca dowladda ah iyagoona aaminsan in la sumeyn karo ama loo adeegsan karo daaweyn qaldan maadaama uu yahay mucaarad aad u huwaysan markaana dowladda kasoo jeeda. Sani Cabdulle ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka ee sida xoogga leh iyo muruqa geliyay in ay kaga soo horjeedeen arrimaha ku saabsan muddo kordhintii loo sameeyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Muqdishona bishii Abriil kuwaas oo soo afjaray dhimicii farmaajo ee ku sameysay muddo kororsiga sharci darrada ahaa. waxaana la sheegay in muddo dheer ay dooneysay dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintaasi, taas oo kadib ku kala qaybsameen ciidamada qaybahooda kala duwan. warar kale arrimaha caalamkan waxaa ugu waaweyn saaxiibayaal. wasaaradda difaaca Turkiga ayaa ku guuleystay tijaabada gantaal maraakiibta laga gano oo markaas burburiya maraakiibta dagaalka. gantaalkan burburiyaha maraakiibta ayaana lagu magacaabaa Antamak waxaana lagu farsameeyay gudaha Turkiga iyadoo lagu guuleystay tijaabadiisa sida uu shaaciyay madaxweynaha Turkiga Erdogan. gantaalkan ayaana lagu tijaabiyay markab sida uu sheegay madaxweynaha Turkiga waxaana tijaabadiisa goobjoog ku ahaa wasiirka difaaca dalkaas iyo taliyayaasha ciidamada badda. waxaa lagu riday badda madow ee gobolka Zinab sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga iyadoo lala beegsaday markab macmal ah oo loo sameeyay si ay tijaabada lagu qaado. gantaalka maraakiibta burburiya ayaa gaari karaa ilaa iyo 200 kilomitir iyo 124 mayl waxaana soo saartay shirkadda lagu magacaabo Roketsan ee farsamada difaaca Turkiga. waxaana la filayaa in maraakiib dagaal ee Turkiga lagu xiri doono dhamaadka sanadkan 2021. Turkiga ayaa heer sare ka gaaray inuu sameysto hubka casriga kadib markii ay dalalka reer galbeedka ciriiri geliyeen inuu helo farsamada iyo hubka casriga ee militariga. guud ahaan daawadayaal waa inta wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka kala socoteen janalkeena ka wararka. fadlan halmaam inaad subscribe saartaan gambalakana furtaan oo shara galeysaan saaxiibadii meelkiisa joogaan idinkoo commentiga la noo reebaya. waad ku mahadsantihiin ka qayb qaadashada iyo daawashada janalkeena ka wararka aan kusoo gudbinay xubnihii ugu dambeeyay ama wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka.